maayir ku-xigeenka degmada Laascaanood mudane Axmed Maxamuud Cumar Kawte oo ay weheliyaan qaar ka mid ay weheliyaan injineerada dawladda hoose iyo waliba shaqaale weynaha ciidanka booliska iyo dadweynaha u tiro badan ayaa wadooyin hor le ka furay xaafadda sayidka ee magaalada Laascaanood. Waxaan ugu horreyn halkaasi ka hadlay ku-xigeenka duqa degmada Laascaanood oo sheegay in howlgalkan wadooyinka lagu banaynayo ay u socon doono guud ahaanba xaafadaha magaalada Laascaanood. Marxiin alxamdulillahi rabbil caalamiin. Marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh ee nagu guuleeyay shaqada tan kamida shaqooyinkii naloo idmaday. Waxaan saaka howlgal shaqo ka bilownay degmo hoosaadka sayidka gaar ahaan xaafadda Saamaley aaga Gowraca oo aanu ka banaynay saddex wado oo ku jira wadooyinkii muddadii ugu horeysay markii aanu bishii 6 ee sanadkii hore aanu diiwaan gelinay 123 wado oo magaalada laga diiwaan geliyay aagana hadda joogno 7 wado laga diiwaan geliyay ayaan saddexdii u dambeeyay saaka furnay. Waxaan markaa shacabka reer Laascaanood aanu sheegaynaa meelaha wadooyinka xidhan yihiin sidoo kale inay diiwaan gashan yihiin insha Allah wada kastana la furi doono muddada insha Allah shaqadu socoto. Waxaan markaa shacabka ka codsanaynaa in wadooyinka la baneeyay waxa nasiib daraa in wadooyin la baneeyay aan saaka aragnay iyagoo dib loo xiray. Dadka wadooyinka xidhaya ha ogaadaan wadadan in qarash ku baxay in dawladda miisaaneed ka gashay inaan loo dul qaadanaynin in qofku intuu wadadii iska xidho uu iska deganaanayo isaguna banaanka la dhirsanayo. bilixdeeda iyo quruxdeeda runtii waa arrin aad iyo aad muhiim ah ka wada shaqeyno ka dawlad hoos ahaan diyaar baan u nahay inaanu hagaajino wadooyinka iyo bilixda magaaladaba. wadooyin aad u dhaadheer wadooyinkaasi waxay ku yaaleen magaalada halkii Sayid Cabdalla Xasan uu deganaan jiray meeshaas wadooyin baanu ka bixinay haddana waanu ka wadnaa. dadka waxaan ugu baaqaynaa in sidaas leeg ay dadku ay uga howlgalaan oo dadweynaha magaalada ku nool ay yiraahdaan tan hanalo bixi tan hanalo eego tan hanalo eego. injineeradii iyo waliba dadweynaha xaafadaasi sayidka degan ee magaalada Laascaanood ayaguna si muhiimsan loo soo dhaweeyay howlgalkan ay dawladda hoose ay ku banaynayso wadooyinka xaafadda Saamaley buurta sayidka eeriyadeeda. waxaanu nahay odayaasha xaafadda waxaanu la joognaa saaka dawladdii hoose ee degmada Laascaanood oo shaqo wacan ka haysa maayir ku-xigeenka iyo hawsh John Mitrada iyo fulinta aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa shaqada ay hayaan. shacabka gobolka Sool waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gudida fulinta iyo guud ahaan golaha deegaanka ee cusub oo ah dad dhalinyaro ah shaqo wanaagsan bay dadka u qabteen sida ay wanaagsan ay u shaqeynayaan ayaanu annana waxaan u ballan qaadaynaa inaanu isu dhinac taagno cashuurta loo bixiyo waxaan gobolka ku baraarujinayaa in cashuurta la bixiyo. laga sameeyay xaafadda sayidka ayaa qayb ka ah wadooyin xidhan oo ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood kuwaas maamulka dawladda soo qorsheeyay in la baneeyo si ay qayb uga noqdaan isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo kor u qaadista bilicda magaalada Laascaanood. waa Barkad Cumar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.